بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام غيرت شرفت لما الكستو الدنيا دعلا دي الدافية ذات كجوكتان وقرنتي يقول الصلي يا حبيبك أنا محمد صوبانه هنا صلى الله عليه وسلم عمري داري عبادة صوباني عافي ما قبك وارميل كستو تكسو قنتيني معا إيا براران إدين رجينا أنيقو أنيقي أدينكنا وأدين برتان إدين كلا صلي وبرتين يوتيوب كلهين وچانل كيني فائدة تي في طبعا إيه سيداد هادي أنا نوع سبتاي فضلا سبسكرايب نوصار جنبال الكفر سيكو صغاران وحكستون سوقلينو عشرة قروح ضبضان أو دجدان أو ميشان كسعودة كفائدة استولا بدن وكفائدة ولا لك لا أو بدن إني كسي فائدة أيان رجينا إلهي إذن كيس هبقايلن فيديو قشير قراسي وقاره تدفر بدن أو كفائدة استه ولا لها مر والبوان وفائدة إن شاء الله فكرتينا كومنتيga noogu soo qora fikradiina waa noo muhiim insha Allah wixii tala iyo tusaale iyo wixii cusub aad u baahantiin inaad idin soo galinana waadna soo weydiin kartaan maanta waxaan wadaa casharkan quruxda badan oo jeedaan ma sha Allah tabarakallah bujiye sambuus dango wala casriyeysanaya baan ku timir qaxwe ya casriye أنا عادي أهين أيا قلبت سميسانينا مادام أي تهي أحد أو مالمها نفسح لسكاها الحمد لله runtii haddii aad sidaan u samaysato ma ilaawi doontid mana joojin doontid inaad bajiya samaysato bajiya afka ayuu bajiya ka yahay laakiin uu kala duwan yahay sidan waa si qurux badan oo maasha Allah fudud oo waqti badanna qaadaneyn sida fudud u samayso marka hore waxaad soo qaadanaynaa digirta noocan cadcad weeye nooca laale iyo noocii aad haysatana waad isticmaali kartaa laakiin aniga hadda tan isticmaalay waa digirta cad digirtaan hadda haysano waxa waaye Allahumma salli ala Muhammad miskilo xoogaa ay ka yar tahay baaquligan ku shubaynaa biyaan ku soo daraynaa biyaha markaan ku darno oo baaquliga ku shubano biyaha xoog baa uga kormarinaysaa yani si aad aad uga kormarinaysaa si ay biyuhu u radiyaan ay digirtu u rado habeenkii oo dhan bay biyaha ku jirtay subaxii markii la gaaray ayaa waxaad sameeyay maqaarkan ka fiiqaya way jilicday dubkii iyo digirtii way kala dabceen marka gacantaas ku leedahay si maqaarku uga fiiqmo ama dubku uga fiiqmo uu ka dhex siibanaya xabadka digirta ama mirta digirtu way ka dhex siibanaysaa maqaarka kabacdi Allahumma salli ala Muhammad wa soo nadiifinay maqaarka waxaan ku guranaynaa baaquligaana si gooni ugu gurnay asaga uma baahnin hadda digirtii oo nadiif ah hadda noo soo hartay waxyaabihii carfiska iyo dhandhanaaniska ayaan ku darsanaynaa insha Allah waxaan ku darsanaynaa waxyar maraq digaaga iyo cusbo Allahumma salli ala Muhammad filfish shiidan xawaaji filfish madow ku darnaydana kabsar caleen sidoo kale waxaan ku darsanay barbarooniga cagaaran toon iyo basal intaasna waan ku darnay caleentan ayadana waad ku carfinaysaa haddii aad haysato haddaad haysan wax mushkilada ma lahan yacni wax allaalay wixii carfis adiga gurigaaga yaala ayaad ku carfsanaysaa kadib markii aan soo shiidnay aan blenderkaas gacanta ku soo shiidnay waatan sida quruxda badan bay noogu soo baxday wax buro kuma darin wax kale kuma darin saliid iyo waxaas kuma darin dad saliid ku qasay waxba jira dad baabur ku dara waxa soo dhan aniga ma isticmaalin bas digirtii iyo waxyaabaha carfiska aan ku daray bas aan soo shiiday kabacdina saliidan dabka soo saaranay saasad ugu guraysaa ma sha Allah waxay noo noqotay sida quruxda badan oo guduudka ah dahabiga aadka u qurux badan tartiib ayaad ugu guraysaa qaadadana waad kula ridi kartaa wax yarna gacantaada intaad ku soo geyso aad ku ridi kartaa mar walbana saliida waa inaad ka taxadartaa si aysan kugu firdhin sidoo kale waxaan dubanaynaa sambuuskan awal buu diyaarsanaa furniture-ka ama freezer-ka ayuu noogu jiray hadda ma diyaarin awal maalin horaan diyaarshay uu ku jiray Allahumma salli ala Muhammad markii aan soo diyaariyay kaala iska arag si fiican ayuu noogu bislaaday bajiyaheena korkana guduud qurux badan oo dahabi uu ka noqday runtii marka aad saa u kala fujiso gudahana ma sha Allah uu ka bisil yahay korkana uu ka bisil yahay sidoo kale sida uu asaga dhan u yahay ma sha Allah sidii la rabay markii saa hadda isugu xoqdo qararaf buu leeyahay ma sha Allah tabarakallah waa u jeedaan indhaha wixii ka deeqaa uurkana ka deeqa liiri halkaas ka dareemaysaa inuu aad u macaan yahay aadna u qurux badan yahay indhuhuna ka deeqaya haddii aad sidaan u samaysato run ahaantii bajiye
maalin walba casriyaad ka dhiganaysaa, maalin walba waad samaysanaysaa. waxyaabo badan ayaa lagu dhex cuni karaa ama lagu cunaa bojiyaha. اللهم صل على محمد. marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaad intaad ka faa'iideysataan, aad faa'iidadaad ka heshid, aadan ilaawin mar walba, iyo sida markii aad samayso uu kuugu soo baxo. haddii aad qiyaastan qaadato aadan ilaawin markii aad ka faa'iido, aad commentiga noogu reebto, hoos noogu reeb fariintaada iyo sidii uu kuugu soo baxo marka aad samaysid. waqti badan ka qaadan maayo. digirta caadiga, digir guduuda ama nooc kale oo digir wixii gurigaaga ku yaal ka samee insha Allah, wax burana ku darin. اللهم صل على محمد. hadda waxaan soo qaadanay basbaaskan ayaan rabnaa inaan isticmaalno. baaquli baan soo qaadanay. basbaaskan waa basbaas shigni aan sameeyay maalin hore way oo furunjiyeerka asagana ku jiray. اللهم صل على محمد. marka waxaad samaynaysaa asagana waad isticmaali kartaa. basbaaska caadiga oo cagaaran waa isticmaali kartaa, maadaama asagaba uu basbaas cagaaran ku jiro. markii la sameeyo basbaas cagaaran u badnaaba wixii aan ka sameeyay, asagana anigu hadda isticmaalaya. asagaas wax yar biyo yar iyo ketchup iyo waxbaan iskula darayaa, waa qasayaa, xoogna wuu u kulul yahay. asaga ayaan ku cuni doonaa. sidoo kale dib ayaan idinkaga sheegi doonaa waxyaabaha kale oo ku cunayno. waxaan hadda soo qaadanaynaa oo sameynaynaa waa daangadii. daangadan waa midda diyaarsan, ma ahan midii aan diyaarsanayn. boxkaas 3 xabo aad u jeedaan baa ku jira. hal xabo kamid ah ayaan isticmaali doonaa. halka xabo daangada waxaan loogu talagalay sideedaba in aan la furin, ayadoo sideeda ayaa waxaad gelinaysaa microwave-ka, kadibna waad ku daaraysaa. halka ayay ku diyaarsan tahay. waxaa loogu talagalay in halkaa lagu sameeyo, looguma talagelin in digsi lagu shubo ama saliid lagu soo daro. ayadaa diyaarsan, bacdeedaas ayay ku diyaarsamaysaa. hadhowna waad ka furaysaa, afkaad ka jeexaysaa, waanaad ka gedisanaysaa. sidoo kale waxaan haysanaa timirta noocan anigu hadda isticmaalaya. noocaad rabto aad haysataa isticmaali kartaa, waanaad ka kaaftoomi kartaa. timirtii iyo daangadii markaan soo diyaarinay waa kana masha Allah, halkan soo saarnay. sidoo kale basbaaska gees ayaan saxanka yarka kaga soo shubanay. dhinaca kalena basbaas macaan oo basbaaski macaana baan kaga soo shubanay. kulaylka iyo macaanka isugu jiray. اللهم صل على محمد. runtii caadi maahan. alla cuntadu macaana, alla cuntadu carfoona, inaba caadi maahan. runtii waa nid ka heli doontaan haddii aad sidan idinkuna u samaysataan insha Allah. qaxwahaaga ayaad soo karsanaysaa. hadda qaxwihii ayaan shubanaynaa. 2 qof ayaan rabnaa hadda intaan inaan haddii alla idmo aan hadduu alla noo calfo aan ku cunno insha Allah tacaala. اللهم صل على محمد. ku salliya subhanahu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. marka maasha Allah tabarakallah, asxaabtayda sharafta leh ugu xiran, waa iska casriye maalmaha qaarkood inaad daangadaada iska dubato waa wax fiican. insha Allah sidaan u samayso. videoguna ha gaaro meel dheer. waxaan idinka rajaynayaa rajo weyn ka qabaa in aad videoga si fiican u share garaysaan, naguna soo biirtaan. maalin walba dad cusub baa nagu soo biira, subscribe badan oo cusub baa noo soo siyaada. aad baad ugu mahadsantihiin runtii la socodkiina iyo la jaanqaadkiina iyo waqtigiina qaaliga ah oo aadna siisaan. waan idinkaga mahadcelinayaa. la-aantiin waa abaar, waa isku baahannahay. idinkana faa'iidadan inaan idin soo gudbiyo quruxda badan waad u baahan tihiin. anaguna subscribe-kan u baahannahay, iyo dhiirigelintiina iyo ku xirnaantiina iyo farxadiina iyo la socodkiina iyo la jaanqaadkiina aan isla socno insha Allah. inta aan ku kulmayno videoga ku xiga waxaan idin rajaynayaa cimri dheer, caafimaad qab iyo cibaado suban, iyo anagoo mar kale anagoo caafimaad qabna isku soo noqonay hadduu Ilaahay idmo. video kale oo qurux badan iyo maalin kale oo qurux badan aan iskugu nimid ayaan Ilaahay idinkaga rajaynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.